السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ciyaarta sharafta lahow meel walba aad dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay xilli wanaagsan. waxaan idin hayaa barnaamij aad u xanuun badan, socon doono waqti dheer haddii allaha awoodda loogu yidhaahdo, balse loo idin ilaalinaya waqtigiina qiimaha badan qeyb qeyb baan nuxulkiisii idinku soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda loogu yidhaahdo. haddaba qisadan waxaan u ahaa bilow ilaa dhammaad goob joog, masale waxaan islahaa la sugo goobta ay ku muhiimsan tahay inaad u soo bandhigto. haddaba haddaad igu cusub tahay intaan barnaamijka gudaha u gelin, waxaan kaa codsanayaa subscribe inaad ii saarto. haddaad hore ila joogtay, waxaan kaa codsanayaa share, like inaad ii samayso. wixii fakar ah ama aragta waad ku reebi kartaa commentiga, waana tixgelin doonaa. haddaba qisada xanuunka badan, jacaylkii geerida lagu arsay bay magaca noqon doonaa. qeybta koowaad baan maanta idiin soo gudbinayaa. dunida waa imtixaan, xanuun waa loo wada joogaa, balse xanuunka baa kala daran. mid bay kuu dhaantaa geerida haddii aad is-celin weydo. qiso dhab ah waan goobjoog u ahaa, waxay ka dhacday magaalada muqdisho, xarunta dalka soomaaliya, sanadka markuu ahaa 2000. haddaba qisadan baa waxay ku saabsan tahay jacaylkii guul daraystay oo furiinka kusoo dhammaaday. maxamed cali allaha u naxariistay wuxuu ahaa marxuumkii qabay shukri xuseen siyaad doole ee nolosha adag iskula soo dul qaadatay, balse barwaaqada bay ugu tagtay shukri xuseen siyaad doole. go-aan baa waxay ku gaartay shukri in yurub marka ay tagto usoo dacwoon doonto ninkeeda maxamed iyo gabadha ay dhaleen najma maxamed cali, balse allah u naxariista marxuumka maxamed diidmo dheer kadib wuxuu iska aqbalay in ay iska dhoofto, walow uu jeclaa in ay wada joogaan, ay hal meel ku wada qaataan nolosha. balse qofka aad jeceshahay way adag tahay inaad ka hor istaagto farxadda uu ku haminayo. familkeeda baa u raadiyey nin dhoofiya, lacag la siiyo, balse sanado kadib marka ay sii maqan tahay, mar keliya waxay la soo booday ifur kuma rabo, aabba iga fur ninkan ama gaari baan isku dhigaa, nolosha baan isdhaafin. halka ay yurub ka joogtay bay nin kale iska barteen oo ay isku fahmeen in ay isguursadaan. haddaba qisadan markaan gudaha usii galno, dhowr qeybood bay ka kooban yihiin, baa waxaad wada ogaan doonaa si waxay u dhaceen iyo si xaaladda ay noqon doonto marba mid marka kasii dambeyso. fadlan hamogaan arrimaha wacyiga iyo xaqiiqooyinka aan idin hayo. intaan barnaamijkan qeybtiisa labaad aan ku wada kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa nabad qab. fadlan sheerka ha ka iloobin. haddaad igu cusub tahay mar labaad waxaan kaa codsanayaa subscribe. aad baad u mahadsantihiin.